foostadii ummadda Soomaaliyeed lagu kala goynayay waa dalolinay adduunkiina dabadu u soo jeediyay Netanyahu dibjirkii Netanyahu iyo qoladii argagixisada ahayd ee SNM adduunkii dabadu u soo jeediyay waxa aan dhur sugaynay haatan noo dhiman dhulka oo la qaatiyo dhalaanko la iibshiyo haweenko la dhiibsho la dhibaato weeyaan dhagta maqalka ceebtii laga dhowrsan jiray oo lagu dhaashta weeyaan kollay haatan dhimanaye Soomaaliy Xasan Sheekh Maxamuud madaxweynaha ummadda Soomaaliyeed oo dardaaran gobonnimo iyo midnimo iyo raganimo leh geelaho dhacan baa toogasho u bareertaane ma dhulkoo dhan oo tagayaan nina dhagax u tuuray bismillaahir rahmaanir rahiim assalaamu calaykum waraxmatullaahi tacaala wabarakaatu guud ahaan ummadda Soomaaliyeed goor kasta iyo goob kasta oo aad joogtaan ba Ilaahay waxa idinka baryaa cimri dheer iyo caafimaad iyo cibaado suban waa barnaamijkeena iftiiminta iyo guulaha isdaba joogga ah ee ummadda Soomaaliyeed u soo hoyanaysa Netanyahu iyo kooxdii la socotay oo gabal baasi u dumay madaxweynaha ummadda Soomaaliyeed Xasan Sheekh Maxamuud ninkii hadlayaaba ha iska hadlay maanta waxa la yahay Xasan Sheekh Maxamuud kiisku waa lagu adag yahay weerar ciriyo dhulaba nala ku soo qaaday madaxweynihii ummadda Soomaaliyeed Xasan Sheekh Maxamuud oo dardaaran eegay iyo hadal taariikhda galay ummadda Soomaaliyeed maanta la hor yimi wax badan baynu canaananay maagnay bogcad baad iibsatay meel baad xaday waxbaad kala tuuraysaa ku darsasha wada waxa soo dhaw waawda halkaas la dhigaya xisaabaha cid allaalay cid ka wada hadli kartaa ma jirto mucaaradkii xalay madaxweynaha u tagay arimaha dacaayada ay la karkariyay waxa kamid ah in laga wada hadlay doorasho iyo wax u eg war maalinba meel bay joogtaan Soomaalidu waxay ku maamaadaa hilba aan isku soo ahayn la iskuma saafo maanto kale doorasho iyo bogcad buu hanafsaday iyo meel buu wax ka diirtay iyo xisaabtaas waa dhamaatay madaxweynaha maanta garabkiisa inuu taaganay maanta madaxweynaha iyo ummadda Soomaaliyeed wiilka baalashlaha ee Soomaaliyeed iyo Xasan Sheekh maanta isku meel bay xabada ka ridayaan sababtoo ah mar hadii wixii aad isku haysateen oo isku maageyseen war wax hagaaji iyo hagaajin maayo iyo waxbaad cuntay iyo waxbaad hanafsatay iyo dalka sida ka daa iyo dadka ha baabin waxaasi arimaha gudaha la yiraahdaa waxa inaga dhaxeeya riyada laakiin dalkeeni baaba kala bal rabaa in la goosto ayaa goosanaya niman ictiraaf haysan on dal ahayn oo adduunka homeless ku ah homeless Netanyahu waa dibjirka dunida ugu weyn isaga iyo aabihii iyo walaalihii iyo asalkiisa meeshu ka yimi homeless ilaahay intuu dunida uumay rabbi dunida ma uumay homeless buu ahaa ilaahay intuu dunida uumay homeless buu ahaa isirkiisa wuxuu yiri asal nimaan lahayn baatiyo ay la soo helay asal nimaan lahayn baatiyo ay la soo helay abtir iyo awow iyo malihid odayadaas sheegto waa nimaan abtir lahayn oo asal lahayn oo dhul lahayn oo dagaal lahayn oo dad ahayn oo adduunka dulsaar ku ah ilaahay subhanahu wa ta'ala baa quraankiisa ku sheegay dunidu Netanyahu dulsaar ku yahay ilaahay baa u ballan qaaday ilaa iyo maalinta qiyaamada dunida la rogayo inuu dulsaar ka ahaado maalinba inuu meel qaxooti ku ahaado ma qaxooti baa maanta wuxuu rabaa marka inuu dalkeena kala gooyo qodobkeena koowaad waxaan isku dul taagaynaa adduunyadii 135 wadan oo caalamka ah ayaa dhalfo ula baxday Netanyahu dhalfay ula soo baxeen waa 135 wadan oo caalamka oo yiri waxaad ka sheekeynaysaa loo garanayna Soomaaliya waa midnimada Soomaaliya iyo gobonnimada Soomaaliya waa lama taabtaan Ilaahay baa noo hiiriyay adduunyada cidina isma jecla laakiin Rabbi baa noo hiiriyay 135 wadan baa ka soo horjeestay wadamada ugu horeeya waxa kamid ah wadanka Jordan Masar Algeria Comoros Djibouti Gambia Iran Iraq Kuwait Libya Maldives Nigeria Botswana Ghana South Africa China Ruush adduunyadii Ilaahay oo dhan baa ka soo horjeestay horta foostadii la soo diliyay ee ummadda Soomaaliyeed rabay in lagu kala gooyo halkaas horta gabalkeedu ku dhacay madaxweynihii ummadda Soomaaliyeed oo hortagay baarlamaanka maanta kelmad qiimo leh buu oo dardaaran ummadda Soomaaliyeed uga tagay kelmadaas waxay tahay tulud geela oo la dhacay bal hadeegay baad ku dirirtaan ama dhulka idil oo la qaadanayo baad dhici kari weydeen inna lillahi wa inna ilayhi raaji'uun waa xigmadii ugu weynayd oo meel adag ka soo go'day oo uu si niyada u yiri Xasan Sheekh Maxamuud madaxweynaha Soomaaliya Xasan Sheekh Maxamuud kelmad xaq ah buu maanta ku hadlay oo niyada ka soo go'day geelaho dhacan baa toogasho u bareertaane ma dhulkoo dhan oo tagayaan nina dhagax u tuuray inna lillahi wa inna ilayhi raaji'uun tulud geela oo dhacan baad toogasho u tagtaaneen ma dhulkoo
tagaya baan nina dhagax u tuuraynin inna lillahi wa inna ilayhi raaji'un wixii dhiig lahow kaca wixii dhiig iyo damiir iyo dadnimo lahow kaca weeye oo toosa maanta Soomaali waa kala baxday waxa la kala bartay inan gumeed dhalay oo caada qaata ah oo indhow garad ah oo aan waxba la weydiin jirin dalka Soomaaliya maanta ummadda Soomaaliyeed maanta waxa horboodaysaa intii aan waxba la weydiin jirin intii aan dadnimada lahayn intii indhow garad ka ahayd intii liidatay intii garashada xumayd intii bilaad damiirka ahayd intii bilaad dadnimada ahayd intii doqonnimadu biyo dhigtay ee hacowga doqonnimadu dhowr bay u kala baxdaa doqon iyo dabaal iyo haadub iyo waxa way dhaafeen iyagu hacow way marayaan hacow intii hacowga ahayd ayaa maanta ummadii Soomaaliyeed horboodaysa waxaase guul ah oo gobonimo ah oo bishaaro ah oo hambalyo ah oo ummadda Soomaaliyeed maanta ugu hambalyeynaya inaynu ka guuleysanay cid kasta oo isku dayday dalkeena inay kala goyso Ethiopia iyo Kenya way aamusan yihiin Imaaraad iyo Bahrain iyo Ethiopia iyo Kenya waliba Imaaraad iyo Ethiopia labadii dal ee arrinkan dabada ka soo riixayay Imaaraadku wuxuu ahaa ninkii odagan candhada ah ee waxa weeye rally yiraahdo nimankii inta Imaaraadka ka qaadeen Tel Aviv geeyay arrinkan Imaaraad baa dabada ka riixayay waxaana ku dayba ahayd waa la inagu dayay haddii aynu jilicsanaano oo arrinkaasi khafiif noqdo oo aynu garada hoos u laadlaadino in geerka leena geliyaa rabay haddii aynu bir noqonana in la naga leexdo ilaa ay hadda Imaaraad iyo Ethiopia iyo Kenya iyo Bahrain waa aamusan yihiin wax kale oo ma aamusna ujeedadu waxay ahayd in marka arrinkaas Netanyahu yiraahdo in la eego waxaynu sameeyno ficilkeena waxa ummadda Soomaaliyeed sameeyay la eegay garashadeena la eegay dadnimadeena la tijaabinayay eegay damiirkeena la qanjirinayay haddii aynu noqono dad nool oo kaca oo ka dagaalama arrinkaasna in dib looga fadhiisto haddaynu ka dagaalami weynana in geerka leena geliyo Mareykan Trump oo Netanyahu gacantiisa midig ah baa naxay markuu su'aasha la weydiiyay public oo idaacadaha TV-da caalamka yaala baa lagu weydiiyay Soomaaliya yaa la dhahay war arrinka anigu waxa weeye taftaydu ka banaanka buu kuma jiro anigu arrinkaas Soomaaliland ta sheegaysaana garan maayo Netanyahu wuxuu yiri isaga yiri aniguna nin degdeg ma ihi badana gali maayo arrimahaas aniga arrimo ay khuseeyay maaha Mareykanka laftiisu dantiisu qaatay jaamacadda Carabta midowga Afrika igad war adduunkii Ilaahay oo dhan ba hal mar rabbi baa noo hiiliyay Ilaahay baa noo hiiliyay adduunkii managa khasabnay ma tamar aan maanta waxa weeye adduunkaas waxa weeye ku khasabna baan leenahay caalamkii Afrika iyo Asia iyo Europa iyo Australia meel aan laga dhawaaqin oo aan laga qeylin ma jirto midowga Yurub ee munaafiqiinta ahaa ee waxa weeye xasaasiyada oo marin jiray eegay bayirana adaro kuma jirno anagu bada ma gelimeyn adduunku cid ina rabtaa ma jirto laakiin waa leena tijaabinay geerkan inuu ina galo iyo inaanu ina galin laakiin waa diidnay saasa maanta 135 wadan oo caalamka ay eegay gaashaanka u dururto waxba kama jiraan talabaad adduunku wuxuu isweydiinaya Netanyahu isagii baa dib jiro oo i'tiraaf aan haysan warnimaan i'tiraaf haysan oo dal haysan oo dad haysan oo cidina garanayn sidee cid kale u i'tiraafa su'aalaha ugu badan ee caalamku isweydiinayaan waa taaba waxa la isweydiinaya Netanyahu muxuu haystaa awood uu ku i'tiraafay xagee Kenya Netanyahu nin raba inuu dagaal galo anagu waxaanu nahay wada halaq mareen xuutiyiin baa la dagaalamaya Yemen baa la dagaalamaya Yemen waxa ka socda hadeer Sacuudigii iyo Imaaraadkii baa laba kooxood intay kala taageereen baa Yementii gam la iskaga dhigay koonfurta Yemeneed gam baa la iskaga dhigay halka waxa la rabaa Netanyahu aqligiisa xun ee dulliga baa lidii sheegaya wuxuu damcay Yemen inuu kala gooyo oo koonfurta dawlad u magacaabo baladeegay say ula dagaalamaan nimanka xuutiyiinta Soomaaliya intuu kala gooyo inuu waqooyiga Soomaaliya salli ka samaysto niman isagu caaga ku taagnayn wuxuu yiri han weynaa ma hayaag baa eegay han weynaa ma hayaag baa maqli jiray isagii baan batamar iyo dadnimo iyo dal iyo dadtoona aan haysan markaasuu wuxuu in Soomaaliya kala gooyo Yemen uu kala jaro Imaaraadkii baa u shaqaynaya iyo Sacuudigii
ساسة سعودي لا السعودي بايريا هرانا وكما تشوفوا بقول يصدم ودن باكوريمي مريكان باكوريمي استراليا كورتمي الدنيا دي أردن بعد وصل شيء سووا تروح بحكي كمان تشران ماشي هالكن هرجيس جورجي مورجنا حالي علىكي وعوي نتياهو بلشتي اللي هو أنا بلاد يجي تدكي وعوي شلي لها وأروح عن ولا لاي ولا حسوقي دبات هاللوجيستي الرو شقاكم لها إسلام نمو وعن لوجو شيء اللي ليه هي إبراهيم أكورد ليه هنا والدين وعقيده هران يدوكو شيء سومالي إبراهيم أكورد وعقيده معها هشيس معها ودين تي مسلم يتي يهود يتي كريستيان أو أنت ودين معمله وعقيده دين معمله أو أجعنت وحوي نتياهو يجعنت هذا يكون سمايستان أو لوجو تلاقي أدونك إن دين لوجا دقو إحنا الدين تأمان تهيستا وإبراهيم أكورد دين كلام له صوبته نكست أو جله إبراهيم أكورد جله وأن عقيدة الإسلام ككبحي أو قاطع عقيدة إبراهيم أكورد قاطع نبي إبراهيم عليه السلام نين مسلم أو إسلام أبوها وح معملة أو شياطين صوص ما يسي إيجي نتياه يكوحديس شياطين تاي صوص مايين أيام ماشى الله كان تيبونا قاطع عرفه وكان سوى تلابيب نحتاجن وحلتها أي وسيركي رماء جدها وحوي جمستها نتياه يكوحديس واكن مركز اللي سو داري ودين تلقري أو لقى الصحيح دين إبراهيم أكون نقاطه مركز الدين معمل كا لقى الصحيح يولي رقاضه وسوقاته وصو صحيح لكن واحد فشل يعيب يوتجبح يدلنمو أي كل علاماته الرأي يكون لمد كها حنوسنا ومدى الصومالية بحنانين يسي إيه بحنانين يسي شرعي حق وحنقول لنا عيد كسته وضلك إنه كسر الدوشة إنه نقعم برس كي قبلنو شاتوسك حكم قارب وليه عالم عرّو يكوحدة SNM اللي فيها سيدتها حكم وإن محكمة اللي صوتها قال له حكموي لما تابتوي من نمط ومط الصوماليين شريتان كذا والله ما تابتان بلا دقيقة ذلك إننا مقنع بأن الرهادين إن إثيوبيا وحكي لما عمسنا إن صوماليا كل جوجوسته إن يبتك قاطو حيرتيه هنا الهمن يتنمى يهرت الله صومالي قال البيت باكم مقن إيجي oo yelakh ay ku qaateen ilaa ay hadda aan waxa weey ka daba guuxayna maanta tamar yeelano rabnaa inaanu ka soo qaadno isaguna badda saylac buu doonaya Itoobiya dantay leedahay waa garanaynaa Kenya dantay leedahay waa garanaynaa Imaaraad danta uu leeyahay waa garanaynaa dhuuq buriyo dhuuq dhalay weeye Imaaraadku buriyada Netanyahu buu dhuuqa balse kuwa Soomaalida nala sheeganaya eegay ee qaarkood maamul goboleedyada yihiin oo soo jeesanaya Saciid Hulumbe iyo kooxda la socota eegay iyo ismadii Puntland oo hadlay سيفي عم بالسود التاجية بإذن الله تعالى لكن مدى الصومالي وهو بشارين يا وهو همبليين يا وينو قولي سني مرحب دي أدونكي أردن أينو عوي كار كاني إيجي أو ما تقرمدي مدوبي درت اللي سويمي أدونكي أردن بانو سويان قرمدي مدوبي أردن بانو سويمانيا يوين كي أردن بانو فريسيني إن أرين كاس أبولا جاس لغا بحيو راليقين لغا بحيو مريكا باما تفر سونا بيا بلا ديجي قولنا تشاشوسين تا برلمان كون احتراء iyo daalimiinta maamul goboleedyada horbooda iyo qaarkood iyo ragga waxa way arigan futada faraha kula jira ballan ilaahay waxa abaan kuri eegay inaanu ummadda idin horkeeno oo dadka Soomaaliyeed idin bartaan war barnaamijkaas uu soo gaarsiin shargaray Soomaaliyeed waa guuleysanay wax yar baa inoo haray midnimadeenu waa lama taabtaan weey cid allaali cid ku soo saqajaami kartaa ma jirto adeer kuwii tabarta lahaa baanu barqa cad u bareernay macdalaha Netanyahu iyo homeless oo dib jiro darbiyada saxdo nolol aan haysanay isaga adduunka dulsaar ku ah niyo nin isaga adduunka dulsaar ku ah eegay wuxuu ku tari karaa isaga waa fanamarane waxa la yiri bariyo tagto jidka ku cilowda bariyo tagto tuugsato jidka ku cilowda eegay nin isaga gacantiisa isa u taagan tahay marano adduunka aan sharaf ku lahayn baad way ictiraafay dalkan anaga iskale dalka iyo dadka iyo diinta waa laba taabtaan cid allaale iyo cidii كلمات خلدني كيدا والله برتسال لوgu imanaya wax badan baa la kala xishooday wax badan baa waxa weeye madaxa leeydi salaaxay cid alla maanta kadib cid laga xishoonaya walahi ma jirto nin walba bartu jooga loogu tagaya oo lagu maxkamadaynaya arsi shargaray barnaamijka khayr